weligaa ma isweydiisay halka uu ka soo faracmay shaaha aad maalin kasta cabtid ama xitaa goortii ugu horeysay ee dunida laga cabay? haddii ay jawaabtaadu tahay maya, inakeen aan isla ogaane inta aanu u gudagelin muuqaalka like saar, sababtoo ah waxay inaga caawinaysaa inuu asxaab badan sii gaaro muuqaalka. waadna ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad inoogu like gareysaan muuqaalada aynu soo gelino. haddaba aynu u galno. Shiinaha ayaa ah dalkii ugu horeeyay ee ka bixi jirtay caleenta shaaha. qubuuraha Yongleng ee ku yaala bartamaha dalka Shiinaha ayaa laga helay doorsho la qalajiyay oo caleen ka samaysan. maadooyinka caffeine iyo theanine ee ku jirta caleenta shaaha ayaa cadaysay in waxyaabahani ay yihiin caleenta shaaha oo lala aasay dad dhintay, waxaana loo malaynayaa in ujeedadu ay ahayd in dadkaasi sahay looga dhigo caleentaasi shaaha. cadaymahani ayaa muujinaya in shaaha la cabi jiray 200 oo sano ka hor bilowgii taariikhda miilaadiga. dhammaan caleenta shaaha waxay ka baxaan hal sinji oo dhirta ka mid ah. caleenta iyo booqa geedkan oo markasta cagaar ah ayaa inta badan laga sameeyaa caleenta shaaha. farqiga u dhexeeya caleenta shaaha ayaa ku xiran kala duwanaanshaha geedaha, xaaladaha koritaanka ee geedka bixiya caleenta shaaha, iyo habka marka dambe loo farasameeyo caleenta. khibrad ama waaya aragnimo diineed. dalka Japan, caleenta shaaha waxaa markii ugu horeysay dalka Shiinaha ka keenay baadiriyiin iyo danjirayaal qiyaastii qarnigii 6aad ee miilaadiga. waxa uuna shaaha isla markiiba noqday cabitaanka wadaadada ku kooban. qarniyo kadib, shaaha cagaaran wuxuu udub dhaxaad u noqday dhaqanka dadka dabaqada sare. ruushku wuxuu shaaha ka bartay Shiinaha. dadka dalka Ruushka ayaa caleenta shaaha waxay uga imaan jirtay dalka Shiinaha. owr safar ah ayaa iyada oo sida caleenta shaaha waxay muddo bila ah isaga kala gooshi jirtay qaaradaha caalamka. shaaha cadayska ah. caleenta shaaha ee ka baxda dalka India ayaa ah nooca loo yaqaano Camellia sinensis assamica. caleenta madow ee Assam ayaa dhadhan ahaan ka macaaneyd caleenta shaaha cagaarka ahi. hase yeeshee, dadka reer Britain ayaa bilaabay inay caano ku daraan shaaha oo ay cadeeyaan. taa ayaana ah sababta ilaa maanta Britain looga cabo shaaha cadayska ah, halka wadamada kale ee qaaradda Yurub ay jecel yihiin shaah bigeys ama casmali ah.